dowladda Turkiga ayaa ka hadashay fatahaada dalka sheegtayna in gurmud degdeg ah la gaareeyo dadka ku dhibaataysan gobolada qaar oo webigu ku fatahay. waa kan Ibrahim Mayo. dowladda waddanka Turkiga ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadashay dhibaatooyinka ka jira gobolada dalka Soomaaliya taa oo kaliftay kadib markii fatahaadu ay sameeyeen labada webi ee Jubba iyo Shabeelle ee mara gobolada Soomaaliya. dowladda Turkiga ayaa war ka soo saartay fatahaadada webiyadu ay ka wadaan gudaha Soomaaliya. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Turkiga waxaa lagu sheegay in Turkiga uu ka tacsiyeenayo dhimashada ka dhalatay fatahaadaha webiyada Shabeelle iyo Jubba ee gobolada Soomaaliya. waxa ay sheegtay dowladda Turkiga in ay kaalin weyn ka qaadanayso gurmad degdeg ah oo loo sameyn doono dadka ay ku barakaceen fatahaadaha webiyada Shabeelle iyo Jubba ee Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu horay safiirada Turkiga iyo Qatar oo kala hadlay gurmashada dadka ay dhibaatadu ka soo gaareen fatahaada iyo biyaha webiga isqabsaday waa fatahaada iyo sidoo kale biyaha webiga Shabeelle ee deegaanka ka tirsan gobolada Soomaaliya. in ka badan dad kor u dhaafaya 300 oo kun oo qof ayaa la sheegayaa in ay ku barakaceen fatahaadaha gobolada Hiiraan, Bakool, Gedo iyo sidoo kale gobolada Jubbooyinka. meelaha ugu dambeeyay ee fatahaaduhu ay ka sameeyeen waxaa ka mid ah deegaanka Goobweyn oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, isla markaana la sheegay in dad badan ay ku barakaceen. deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa ugu daran oo dhibaatada ugu badan ay ka jirto, waxaana dowladda Turkiga wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay in gurmad degdeg ah ay u sameyn doonto dadka dhibaatadu ay ka soo gaareen biyaha webiga iyo sidoo kale biyaha roobka isqabsaday kadib daadad ka dhashay. mahadsanid Ibrahim. wararka fatahaadaha ayaan ku jirnaa. wili waxaa la soo warinayaa in dadkii ay dhawaan dooni kula rakumatay webiga Shabeelle ee mara gobolka Hiiraan in haatan qaarkood wili baadigoob loogu jiro. Zamzam Saciid waa Xamza Saciid Xamza oo ka mid ah guddiga gurmadka fatahaadaha wuxuu sheegay in wili meydad badan ay ku jiraan biyaha webiga ee magaalada Beledweyne waa sidoo hadalka u yiri. dadka sikadis laakiin sanadkan alxamdulillah waxa lagu guuleystay meedadkii shalay la raadinayay laba la helay wiil 8 maqan wiil raas ku jira marka meesha xooga caqabado badan jiro dooman ku filan ma haystaan laba doon magaalo dhan wax lagu mubaarak karo meeshana waa meel iska go'doon ah dhibaatooyin far badan ayaa jiro laakiin waan dadaalayna ashana wax ka qabano dadkii horta meel fiican ay jiraan waa laga shaqeynayaa hadda maanta waxaan ka maqalnay inay ugu talagaleen raashin meesha loo diro waxyaabi kale inaa meesha ka sii wada hooshaan ilaa kumanaan qofood in meesha laga badbaadiyo taasna waa shaqo ay qabteen waxaan rajaynaynaa waqtiga soo socdo waxaa laga hadlay haddana mustaqbalka dambe maxaa laga qaban karaa si looga hortagi lahaa fatahaadaha waddanka ka jiro taasna waa istaraatiiji u baahan dawladda waxaan kaloo deeqbixiyaasha kula hadalnay si toos ah inay dawladda ula shaqeeyaan dawladda federaalka awaamirtoodana ku socdaan waxay la qaban lahaa meesha kulay caqabado badanaa jiro caqabadaasna in la wada qabto mar meel hadduu dhib yimaado dhowr qofood ayaa iska soo baxo meelahaas ka qeylqeylinaayo laakiin waxaan dhahnaa hal albaaba laga geli karaa meesha. waa Xamza Saciid Xamza oo ka mid ah guddiga gurmadka fatahaadaha gobolka Hiiraan oo sheegay in wili meedad badan ay ku jiraan biyaha webiga ee magaalada Beledweyne. wili waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda Dalsan xarunteeda Muqdisho. warkayga subaxnimo ayaad la socotaan. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa xalay magaalada Qardho kula kulmay ama kulan kula qaatay guddiga amniga magaaladaas sida warkan uu ku faahfaahinayo Xuseen Washington. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ee dowlad goboleedka Puntland ayaa xalay kulan la qaatay guddiga amniga gobolka Karkaar iyo sidoo kale kan degmada. kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa looga hadlay arrimaha dhanka amniga. afhayeenka ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jaamac Dabrani ayaa warbaahinta ugu warbixiyay kulanka uu madaxweynuhu la yeeshay guddiga amniga gobolka Karkaar ee Puntland
isagoona sheegay in mas-uuliyiin heer gobol iyo heer degmo uu kulanka la qaatay madaxweynaha iyagoona uga xog waramay xaalada guud ee gobolka iyo sidoo kale degmada waxaana saraakiisha amniga sidoo kale uu wax ka weydiiyey sida ay ula macaamilaan shacabka ku dhaqan gobolka Karkaar ee Puntland isagoona sheegay in ay si wanaagsan hawshooda u socoto sidoo kalena waxa uu sheegay in horumarka dhanka amniga laga gaaray degmada iyo sidoo kale gobolka Karkaar isagoona sheegay in arrimahaas ay yihiin mid ku yimid wada shaqeyn dhexmartay laamaha amniga iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan gobolka Karkaar. بسم الله الرحمن الرحيم عاوي تاريخه تهي 29 بش أكتوبر 2019 مدحوينها دولة بونتلاند مدن سعيد عبد الله الدني oo caawa ku sugan magaalada Qardho waxa kulan la qaatay gudida amniga ee gobolka Karkaar mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ayaa kulanka la qaatay madaxweynaha waxa ay uga xog warameen xaaladda guud ee gobolka Karkaar iyo kan degmada saraakiisha laamaha amnigu waxay ka warbixiyeen sida xaaladda amni ay u wanaagsan tahay horumarada laga sameeyay dhinaca amniga mas'uuliyiinta heer degmona waxay ka warbixiyeen horumarka ballaaran wadooyinka ee ku socda xarunta gobolka Karkaar ee Qardho maamulka gobolku waxa uu ka warbixiyay xaaladda guud ee degmooyinka gobolka iyo sida ay u socoto arrimaha la xiriira horumarka guud iyo ilaalinta amniga waxyaabaha ay la wadaageen madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni waxa kamid ah muranka ka dhasha dhulka waxaana uu ugu dambeyn madaxweyne Deni uu faray dhammaan laamaha ay khusayso in si degdeg ah wax looga qabto si loo soo afjari lahaa muranka inta badan ka dhasha dhulka aad iyo aad bamaas si kastaba madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa saacadaha soo socda waxa la filayaa in kulamo kala duwan uu la qaato bulshada ku dhaqan waa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ee Puntland isagoona sidoo kale kala hadli doona arrimaha guud ee deegaanka sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu la kulmi doonaa odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale dhalinyarada iyo haweenka isagoona kala hadli doona arrimo kala duwan iyadoona intuu ku sugan yahay magaalada sidoo kale uu dhagax dhigi doono mashaariic kala duwan sida wararka la helayo ay sheegayaan. Washington aad baad u mahadsantahay. xisbiga wadajir ayaa isaga baxay isbahaysiga xisbiyada dalka guddoon cusubna loogu dhawaaqayo magaalada Muqdisho. Ibrahim Mayo ayaa warkan si dhameystiraya. xisbiga wadajir ee hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hor yimid madasha ay ku midoobayaan qaar ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee dalka guddoomiyana loogu dooranayo gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. xubin ka tirsan xisbiga wadajir ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in aanay ku jirin madasha xisbiyada qaran ee hadda la dhisayo. ila wareediyo ayaa sheegaya in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu diiday in la doorto guddoomiye taa oo la sheegay in loo dooranayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. warar kale oo soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in madasha xisbiyada sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu diidanaa in la bedelo guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee siyaasadda dalka. xisbiyada ximilo qaran UBD Ilays Kulan iyo xisbiyada kale ayaa soo jeediyay in madasha uu yeesho guddoomiye isagoona loo dooranayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in Muqdisho loogu dhawaaqo guddoomiyaha cusub ee isbahaysiga xisbiyada dalka ka oo la filayo inuu noqdo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. toddobaadka soo socda ayaa lagu wadaa in Muqdisho ka dhacdo munaasabad lagu shaacinayo guddoomiyaha madasha asxaabta siyaasadeed ee dalka taa oo culeysyo kala duwan ku noqonaysa dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in haatan uu heer gabagaba ah marayo garoon diyaaradeed oo loo sameynayo magaalada Beledweyne ee waa magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. dhismaha garoonkaas ayaa waxaa buddig u ahaa madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyadoo dhismaha garoonkaas uu soo jiitamayay muddo waa sanadihii la soo dhaafay. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ibrahim Najax ayaa sidaas warbaahinta u sheegay. iyo parking diyaaradaha oo runtii ayagana sidaas la mid ah la dhameeyay waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay
inaan maqlo 21 diyaaradood inay ku soo degeen eelboorkan oo runtii ciidamada amisom ay isticmaalayeen oo dhinaca logisticada ay uga faa'iideysanayeen waxaa noo harsan marka wax aad u yar madaxda qaranka iyo tiimada goboleedka inay halkaa yimaadaan eelboorkan in la furo si bulshada oo dhan ay uga wada faa'iideysato waxaan maqleynayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo amisom shacabka iyo maamulka degmadan oo waqti aad u xoog badan geliyay in eelboorkan uu dhismo oo maanta aan ka fikirno kaliya qaabkii aan xarig uga jari lahayn siday bulshada uga faa'iideysan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose horumar ayaa ka jira howlgalo ayaa socda waxaan rabnaa in adeega dawliga la gaarsiiyo meel walbo ka mid ah gobolka